stop wasting your life jooji khasaarinta ama beerdarnaynta noloshaada wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed ee dhigeysanayo. Listen to me very carefully. Listen what I have to say. Dhegeyso waxaan ku sheegi rabo si fiican u dhegeyso. Put the fucking phone down. Telefonkan iska dhig ee si fiican ii dhegeyso. Telefonkan waxaan biil iyo lacag aan isku qarash garayso iyo waqtigaaga ku lumiso waxaan ahayn kuma uu keeno. Isweydii telefonkan waxa ugu muhiimsan noloshaada oo ah lacag iyo waqti aad gelisaa bedelkeedii maxaad ka heshaa. dhulka iska dhigay si fiican ii dhegeyso maxaa yeelay waxaan kula wadaagi doono fariinta aan kula wadaagi doono iyo message-da kula wadaagi doono videogan waa mid noloshaada bedeli doono. sideen ku ogaaday noloshaada bedeli doono maxaa yeelay waxaan aan sameeyay weeye si aan rafaadkii aad u badnaa iyo dhibkii nolosha ciriiriga ahayd si aan uga gudbo wixii aan sameeyay ayaan rabaa inaan videogan kula wadaago si aad adiguna noloshaada horumar uga gaarto. xaqiiqadu waxay tahay qof bini aadana oo nolosha meel ka hooseysa ka soo bilaaba ma jiro meeshan ka soo bilaabay rafaad gaajo agoonnimo dagaal dhibaato intaan soo maray qof bini aadan oo soo maray wuu yaryahay mana jiro nolosha qof meel ka hooseysa soo bilaabay. laakiin muhiimadda videogan ma aha inaan kaaga sheekayo dhibkaygii. muhiimadda videogan adigu kugu saabsan yahay walaalkayo si fiican ii dhegeyso. muhiimaddan adiga ayaan rabaa inaan kuu faa'iideeyo. adiga ayaan rabaa noloshaada inaad dhibkan ka baxdid sida dhibkan uga bixi kartaa. qodobka koowaad oo raba inaad fahantid waa inaad ku noqotid qof dadaal badan. you have to hard work. You have to do hard work because maxay tahay sababto hard work is the greatest equalizer. hard work waa midka asaga ka daba geeya kadib markii aan aad u dadaalay. maanta dadkii jaamacadaha dhiganayay markii aan rafaadka iyo baadiya waxaan ku ilaalinayay yaan maanta anigu wax baraa. sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay markay ayagu hameenkii seexdeen yaan wax akhriyay. markay galabkii ay iska baashaaleen iyo baashaal saaxiibadood banaanka la aadeenna waxbaan akhriyay. markaas dadkii maanta jaamacadii adduunka dhiganay markaan anigu xaraha baadiyo ku ilaalinayay yaan maanta anigu wax baraa. marka asaga waxa kaliya ka daba geyn karo waa dadaalka. you must do hard work, brothers and sisters. Listen to me very carefully. si taxadar lii dhegeyso waa inaad dadaashaa. laakiin sidee ku dadaali kartaa waqtigaagii oo ah wixii Ilaahay ku siiyay waxaad gelisay telefonkaasoo bedelkiisa aadan waxba ka helin qarash aad adigu u baahan tahay noloshaada u baahan tahay oo familkaaga u baahan yahay yaad ku qarash garaysaa. telefonka waxaad gelisaa wixii Ilaahay ku siiyay wixii ugu muhiimsanaa oo ah waqtigaaga. waqtigaad wax ku baran lahayd waqtigaad wax ku akhrisan lahayd waqtigaad ku cibaadaysan lahayd waqtigaad jirkaaga caafimaadkaaga ku dhisan lahayd yaa telefonka gelisay. bedelkeedii maxaad ka heshay? bedelkeedii faa'iido darrad ka heshay. indhihii baa ku xanuunaya. indhuhu balaan ku weydiiyo maanta indhahaaga maxaad ku gadan lahayd? indhahaaga nuurkooda bal isku qabo 2 second isku qabo ee haddaad weysid sidee dareemaysaa? indhahaaga nuurkoodii yaa telefon macna la'aan darro iyo dad wax dano ku hayaan arag daawashadood yaad ku khasaarinaysaa. telefonku waa dhibka ugu weyn oo wajahaya dhalinyarta Soomaaliyeed ee maanta sababta uga hadli rabana waa waxaas. waxa hard workii iyo shaqadii iyo fakarkii fiicnaa iyo inaad fakartid ka hortaagan waxaan soo ogaaday inuu telefonka yahay. sidaas darteed waxaan rabaa inaan kaaga dhigo telefonka. tan kale waxaan rabaa inaad ogaatid wiilka iyo gabadha dhalinyarta Soomaaliyeed you have been failed by your nation. waxa ku fashilmay qarankaagi wuu fashilmay. waalidiinta way fashilmeen. hogaamiyaashaadi way fashilmeen. dadkii ka waaweynaa way fashilmeen. noloshii bay ku fashilmeen. you have inherited nothing. wax aad dhaxashay male. guri maanta ku yaala magaalada Soomaaliya ku yaala haddaad dhaxashay oodan nabad ku helayn oo aadan bahalkan waddo uusan lahayn oo uusan sewage system ama uusan lahayn biyo
ama uusan lahayn bulaacado la dhisay oo habaysan wax uu yahay male. So basically runtaan kuu sheegayaa wax aad dhaxashay male. noloshaada are you going to fail? adiguna ma inaad noloshaada fashilanta baad rabtaa? wax kasta hadday fashilmeen adigu noloshaada ma fashilmaysaa? mase fikrada cusub taleefanka dhulka iska dhigtid yaad rabtaa inaad fakartid? yaa waa kugu celinayaa taleefanka dhulka iska dhigtid wax biil ah taleefankaas wax faa'iido aan kuu keenin dhulka iska dhigtid inaad fakartid oo wax muhiimadda nolosha wax muhiim ku ah aad focus garaysid ama aad xoog ka saartid ma awoodaa? ugu yaraan awooyaasheen iyo intii naga hore inkastoo ay fashilmeen oo nolosha ku fashilmeen ugu yaraan way seexan kareen, cunto fiican bay cuni kareen, saaxiibadood bay la ciyaari kareen. guurku waa iska sahal buu ahaa, macno la'aan buu iska ahaa. sex iyo waxay raaxo kudma free iska haysteen. adigu intaas midna ma haysatid maanta. adigu intaas wiilka dhalinyarada gabadha Soomaaliyeedu guurka iska macno la'aanta maanta ma awoodid. chief ma awoodid. indhihii baa ku dhacaya. indhihii telefoon buu kugu dhacay. xaqiiqada runtaa ma ogid. You have inherited nothing. dadka adduunka jooga dadka facaaga ah wadan bay dhaxleen. constitution iyo waxay dhaxleen nidaam. dhaxalka ugu weyn baasaboorka bay dhaxleen. jaamacada bay dhaxleen. isbitaallo caafimaad bay dhaxleen. adigu midna intaas ma aadan dhaxlin. haye marka sidaas darteed sida hore ugu soo sheegay si aad dadkaas uga daba tagtid you have something, you have only one thing, and that one thing wax baad haysataa oo dadkaas uga daba tagi kartid. You have to do hard work. You have to work harder 3 times, 4 times, 6 times. Waa inaad dadkaasi aad uga daba tagtid nolosha meel uga gaartid. intaas hard work inaad gelisid waay. Because hard work is the greatest equalizer. aniga ayaa ku xaqiijiyay maanta waxaan wax baraa anigu oo cilmigiisa hor fariista dadkii jaamacadaha dhiganayay oo maanta senior positions haysta oo kambaniyal maamula yaa maanta cilmigiisa raadiya. dadkii bahalkan liiraa markii anigu aan hal luqad kaliya Soomaali kaliya ku hadlayay dadkii 5 luqadood ku hadlayay yaa maanta inspiration isu raadi oo jira na dhiirigelin nolosha. yaa dadkii adduunka safar ku soo wada maray dadkii nolosha meel ka gaaray yaa isu raadsada. sababtaas maxay tahay? Janice waxaan haystay bahalkan waxaan sameeyay wixii loo yaqaanay working hard. adiguna taas ayaad haysataa. sidaas darteed si aad nolosha u gaartid meesha rabtid you have to work hard. There's no other way. There's no shortcut. waa kugu celinaya ma jirto wada gaaban oo lagu gaaro aad noloshaada meel uga gaari kartid. anu ma oga noloshaada goolkeedu waxa uu yahay, laakiin waxaan ogahay wax kasta oo qiimo leh oo nolosha macna keeni kara ama meel aad ku gaari kartid inay tahay inay u baahan yihiin awood fara badan, inay u baahan yihiin focus, inay u baahan yihiin inaad focus garaysid oo aad telefoon dhulka iska dhigtid. waa kugu celinaya dhibaato waxaa maanta ku soo wajahday aan waalidaanteedii hore soo wajihin. waalidiintii hore nolosha waa iska faraxsanaayeen, wixii yar helaan bay ku qanacsaneen. adigu maanta xataa intaas ma awoodid. yaa caafimaadkaagii yaa telefoona waxaad ka helaysay la ergiyaad gelisay. waxaan kaa doonayaa inaad fakartid. fakar waqtigaa ka faa'iidayso dadaalna. وعليكم السلام.